cabdullaahi embiga bulshayoogu codeeyo caynanka u dhiib halla doorto cabdullaahi duudka beeray iyo caalafkii xoolay iyo ceela laga cabiya dugsiyada cilmiga الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دمار السلام عليكم السلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله آد بانو فرحسنا آد بان ما سنتين فدي بناي كان بيك بناي صومر ما أنت أيقو قيمة بدن ما أنت أيقو فرح دي بدن ما شاء الله رهلوكو ودنا سنتين ما ها مركي ورسان هلوكو كان بين ويماغو تاريخ لواتاني السقال بيشي كوي تبنا 2021 او لح برود لغا جوغو هل كان جوغي وقت كروبا يهد وقت غربا يهد الحمد لله ما انت مالنتا بلا ماها مركو ورى الله سبحانه وتعالى يا نمو هذ علينا يا وانكم هذينا نعمة الإسلامكم نسيي فرصة دقالق ويسيي oon maanta fursad u helay inaan reehuluuqo haddaa waxaan u malaynay odayaashii alle hadda reehuluuqo waanahay waxaan aaminsanayaa anigana ka reehuluuqosanahay afkii aan kula hadlay ree masalaani ree ijaara way ka duwan tahay afkii aan kula hadlay ree sangayool iyo reehuluuqo si kalsooni leh oo adeege oo walaalnimo leh yaan ka aaminsanahay inaan ku qabo ree sangayool iyo reehuluuqo maadaama aan wiilkiina ahay 9 sanaan ila joogay meelaha qaar markaa maray odayaashina aad u halawaan raba laakiin reehuluuq waana la hadli kalsooni baan ku qaba dadkayga inaan aniga la hadli karo codsiga u jeesan karo walaalayaal reehuluuq waad maasantiin waxaan ogahay qofka koowaad oo musharax mudane baarlamaan ijaara u taagan oo codkiina codsado aniga baan ahay sababta waxay 6 bilood ka hore 6 bilood ka hor baan idin imaade si walaalnimo aan u ila hadle وإذا عدسه وحنا كرسينا وحنا بنا عدكنا بيشتار السجال بيشتار 2022 ما أنت وحنا نصيب ويا شيء وحن شنقف أما فرقف يا جودي دورة شبك كينيا IBC يا وان سحسة إن أيو استعان أما يعد سلان كرسي البرلمان كإجارة وحن هذا نصيب ويا شيء إن أنا أي قفك كواد أنت IBC نكلا جرسنا وصهره dadka walaalahay ila taagan waad ogtiin inta ila taagan waa reejaara xaq bay u leeyihiin maanta meesha aniga nidaamkayga ama nidaamkii aan rabo inaan ku codsado kuwaaga reejaara waxa way uma baahni maan meesha inaan qof aflagaadeeyo ama wax ka sheego aniga taydaan ka hadlay soo maaha laakiin waxaan aaminsanahay Soomaali waxay tire qof aan ku fureyniyo ku rarin taa waxaan ku wadaa 9 sano huluuqo joogay baayida huluuqo lima tilmaamay waan garanaya waxyaalo badan oo ilin iga keena huluuqo ugu soo maray anigoo mas'uul ka ah markaa meesha dhisiga ahay waxay ila shaqeynay markaas MCA laga bilaabo ilaa governor ilaa senator ilaa ugu maray bilaa MP
iyo dad kale ama hulluuqa u dhashay ama hulluuqa sababta mishaar ku qaadanay waxaa ilaahay ii waafajiyey alxamdulilaah inaan marar qaar aan noqdo hulluuqoo aad u dhibaataysan ninka kelixoo ilaahay waafajiyana u soo gurmado waxaan shaahid ka ahay hulluuqoo network la'aana dhib ka dhace maalin 12 oday oo qaarkood halka taganaan garanay network markaa waxaa laga gelaya qoraahindii odayaashii qoraahindii way taxi ku imaadeen waa ila soo hadleen gaaris baan joogay waxaan rabaa in aad isku dhegaysanno odayaasha waxay ku dhow wax telefoon naga qabto ma leh geed baan hoos fadhinaa geed garas qoraahindii baan fadhinaa hulluuqoo dhib baa ka dhace cabdullaahi maxaad noo qaban kartaa waxaan ku dhihi ani wixii dadaalkayga waan qabani inta kaloo mas-uuliyiinta oo jagadooda gabeenna waan la hadli waxaa ilaahay u guulaysay markaas intii ay rabeen aan la hadashiyey dantiina meesha markaas aan ku fulinay soo wax weyn ma aha baahida koowaad aniga intaan ka shaqaynaya hulluuqa waxay la isoo mara waxaa ka mid ah inta laga soo doorte ama inta mas-uuliyiinta ka ahayd inay dhihi jireen hulluuqu cabsi waa hore amaad ku dhimata maxaa ka dooni dadkii la rabay la dhex joogo baahidooda la ogaado waa meesha xuduudka ah waa meesha ijaara constituency ugu dhib badan oona daraf jirto waxyaalihii aan garab ku waaya la cilaado waxaa ka mid ahayd dadkii walaalihii mas-uuliyiinta ahayeen inaan mar walba dhihi war hulluuqo aan booqanno war hulluuqo aan tagno hulluuqoo dhib baa ka jira waxyaalaha igu dhibanta waxaa ka mid ah hulluuqoo dad aad u tabaalaysan baa degan dad u danyar waddanka waxaa la rabaa waxyaalaha qabashada dawladda inay garab siiso hay-adaha midtin walba aan galo waxaa la dhihi jira hulluuqo security zone way lama galo war hulluuqo annaga ka shaqaynaa annaga tagnaa waxba dhib kuma jiro shaqaale dawlad baan nahay waxba dhib ma jiro meelihii aan garab ku waayay oon la ciilooday meelahaasaa ka mid ah anigoo wiilkiina cabdullaahi yarow geedi maanta aan ila taaganahay waxaan u imaaday waxaa way waxaan u taaganahay kursiga baarlamaanka ijaara u taaganahay waxaan rabaa kursigaas inaad igu caabisiin codkiina aan ku tago baarlamaanka kenya sidii horaan baa anoo tabar daran oo dhisi oo awood baan haanin aan iigu shaqeeyey si daacadnimo walaalnime yaan haddana idinku shaqeeyo ree hulluuqo markaan dhaho qoosni lama hadlahay deegaanka hulluuqo waa isku dan waa isku baahi markaan abaaraha soo gurmanay aniyo culummada inta garab iga markii dhibaatooyinka hulluuqa u soo gurmanaynin degmo uma kala qaadin qoysna uma kala qaadin walaalayaal nin walbo musline oo kenyaane oo codbixiye oo maalinta codka dooranaya waajib baa saaran qofkaad isleeda wuxuu ku qabani adoo qoys u fiirinin adoo dan kale u fiirinin haddaad aaminsantahay inuu wax ku qabanay codkaas inaad siiso waa muhim waana waajib ku saaran qofka hadduu asaga waajibkiis gudan waayo ilaahay la xisaabtami baahida meeshan ka jirto maanta uma baahni manifestooda ama waxaan qabanayna meesha ka taajeeyo baahida hulluuqoo lima tilmaamay waa meel xuduude waa meel waxyaal baan u qabsade xagga ammaanka hadday noqoto waxbarasho waddooyin caafimaad xanaanada xoolaha dadka tabaalaysan oo la taageero intaas waa in aan dawladda ku leenahay laakiin waxaa ii sii dheer waxyaalahan rabo waddanka walaalihii waxyaalaha wax badan oon ka hadlay waxaa la yaaba mudanaashka inay sheegaan laakiin waxaa idin xaqiijina biidni illah aan ballan idinku qaadi si horaan igu sii shaqeeyey inaa noqonaya wiil ree hulluuqo oo hulluuqo joogay baahidiina ogaanay haddaad i doorataan raalli ahada waa soo gaabina odayaal ree hulluuqo nafaas baan sii rabnaa waxyaalahan rabo ree hulluuqo inaan u sheego waxaa wey intaasaa qof soo dooranayseen haddala macan baan igula hadli jiray dadka waxay baryaan waxaa noqoto waxa la voter apathy dadka way quusteen hataa waxay doortaan ay garan leeyihin wax fiican baa loo sheegi waana laga tegi aniga isma ammaana intaan idila joogay waxaan u malay wixii karamadii ama awoodii waan qaban jiray intaasay haddan igu baryahay insha allahu kursigaas dhaqaale buu leeyahay lacag CDF baa jirtaa sanadka ugu dambay 130 milyan baa soo martay maanta haddaan dhaho odayaasha hulluuqo ama saa wiilo CDF laga bixi ama saa baasdir lisbee waxaa laga inaan yartahay waxaa idiin ballan qaaday inaan xafiis constituency office xafiiska masalaale ka furan inaan xafiis kale ku yeelan doono magaalada hulluuqo oo baasdiriga hulluuqo woon lagu bixin doono lacagta CDF-ta waxyaalaha u weyn oo ran isbedel ka keento oo dadka ka faa'iideysa waxbarashada xoolihii way dhammaadeen dhibaatooyin badan baa iska jiraan carruurtii wax bay baranahayaan inta akhristeen waa inay shaqo loo la garab istaago inta iskuulku jirtana waa in la caawiyo waxbarashada annaga way hooseysaa nasiib darro haddaan idiin sheego hulluuqo ward iskuulo badan baa ka furan halka hulluuqo primary KCB laga sameeyaa qoraahinta ku soo xigtay KCB waxday ka baxday maxaa keenaya inaan dhowr iyo 10 iskuul ama 20 iskuul ku dhawaada aan leenahay oo hal iskuul laga bixiyo hal iskuulka KCB laga sameeyo sanadkii waxaa la rabaa intaas oo cunug iskuul loo diro
waan ogahay magaalada huluuqo ward markaan ka hadlay sangaalo ku jirin isbitaalka ganac ka furan waa isbitaalka huluuqo lima tilmaamay garabay isbitaalka ka dhisan ma shaqeeya maya ilka beere ma shaqeeya maya shaqada waxaa laga rabaa county government waxaan diyaar u ahay maadaama aan county ka shaqayn jiray xoogaalna u ahay inaan dabagal ku sameeyo sida isbitaalahaas iyo isbitaallo kale dhisi doonaba looga shaqagelina insha allah walaalayaal waad mahadsantihiin waqt fadhi badan baa yeelan doona insha allah dhalinyarada maamooyinka odayga fadhi baa la yeelan doonaa waxaa idin sheegi insha allah waxaan diyaar u ahay si hore aan iigu shaqeeyey inaan idinku shaqeeyo inagna iga agrina kuraagiina insha allah qoysa ii fiiranina milkiina baahe waad i garanaysaa doorasho loo dareera doorashada marka ma is weydiiseen doorashada maxaa sababta loogu dareeray maxay ta 5 sano wala arko 5 sano doorashada waxaa way dadka leaderska xum in la bedela ayaa la rabaa marka reexaluuq adaanano waxaan ku qasbanaa in leaderska xum ama madaxda xum inaan bedelna hadaan reexaluuqanaano marka si ogtiin anaga iskuulaayni iyo iskuulaha iyo isbitaalaha dameero ay ku xaaraan fence ma loo marka deer ma loo inaan deero ama aniga inaan iyo fiicna dadkii hore ku sii jiray bari kuwa dhiciro taariikh 9 bishii 8 inay dooratiin insha Allah waan ku maasantiin mi dooranaysi